السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار قيمها هي شرفت مدن كسور دوادة شنا كينيا عافماتك يو بروجرام كينيا عافماتك كلو سوعين جرتين هالتي كير عاو waxaynu doonaynaa hadii ilaahay ka dhigay inaynu soo qaadano mowduuc ku saabsan gestation period ama se xilliga la yiraahdo ay hooyada ilmuhu caloosha ay ku jirto iyo mashaakilaadka ilmuhu la kulmo gaar ahaan xilliga ay hooyadu abaarta ama se lagu weeraro marxaladda la yiraahdo sexual intercourse ama se galmada aynu markaa eegno aynu istu taagno khasaaraha ay u geysan karto ilmaha hooyadu oo loo baahan yahay xilliyada ay uurku soo dhawaado in intensive care iyo daryeel badan la siiyo haddii aabuhu ama se family-gu ay isku waafaqaan xilliyadaas inay sii wadaan marxaladda la yiraahdo sexual intercourse ama se galmada waxay abuuri kartaa in ay dhaxlaan mararka qaar ama ilmuhu uu gaadho dhaawacyo aynu tilmaami doono siyaabaha ay u gaadhi karaan hooyada ilmuhu sidaynu ka arkayna sawirka marka ay soo dhawaado ee bilaha 6, 7 iyo 8 ilaa 9 ay gaadho aad buu soo weynaadaa madaxiisuna xagga hoose ayuu ku soo daadegaan qaybta markay tahay dhakhaatiirta iyo caafimaadka iyo hawlwadeennada caafimaadka iyo aragtida caafimaadku intaba waxayna faraysaa in hooyada caqudhigis waxa la yiraahdo lagu sameeyo in uu aabuhu ka ilaaliyo inuu xilliyada ku qaado weerarka la yiraahdo galmada sababta oo ah waa marxalad caafimaad oo iyada hooyada u dana ayaan xilliyadaas aan habboonayn tusaale ahaan oo kale xilliga waxa balqa ama ballaadha makaanka afkiisa oo xagga hore yimaada waxa kale oo xuubba ilaahay ugu talagalay ilmaha ku dahaaran oo la yiraahdo xab ama se membrane kaasu hadii uu ninku hooyadu ama aabuhu hooyada la sameeyo galmo zaayida oo xilliga uu ku garaacay jilbihiisa ama se geedkiisa waxa dhici kara xuubkaas inuu qarxo in hooyadii oo aan gaadhin xilligii labor period-ka ama se delivery time-ka ay umuleysay inay hooyadu ay dhiig soo dayso ama ilmihii uu dhaawac gaadho oo culayskii faraha badnaa ee ku dhacayay iyo jugtii ku dhacaysay ay ka gaadho waayo maadaama meesha uu soo fooraraay madaxiina ay maskaxdu ku jirto ilmahaas inuu ku dhasho ilmo paralyzer inuu noqdo haddii aan paralyzer noqonna inay dhaawacyo ama jugo ay gaadhaan marka inaha waxaynu ku taxadari doonaa haddii ilaahay ka dhiga in hooyada keerkeeda iyo daryeelkeeda laga taxadaro aabuhuna uu arrintaa ku dhug weyn u yeesho oo uu ogsoonaado ka fogaanshaha xaaladda dhowrka bilood ugu dambaysa in aan bataatanba arrinkaasu laga maarmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa aragtidii caafimaadka ahayd baynu wada wadaagaynaa ku saabsanaa hooyada uur kale subscribe-ka hayna la dhaafina channel-keena Health Care wad salaamantiin